xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaasna lagu weyneynayay goon-isitaaga maalinta xornimada Somaliland ayaa lagu qabtay magaalada Helsinki ee caasimadda waddanka Finland waxaana xafladaasi khudbado iyo hadallo qiraa'ah ka jeediyay gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland iyo qaar ka socda xubnaha urur-siyaasadeedka qaran ee Somaliland. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aniga waa gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland ee Finland waxaan halkan ambaliyo iyo bogaadin uga daray dhammaan jaaliyadda reer Somaliland meel kasta ay joogaan iyo dawladda reer Somaliland ee dalkii hooyad dhammaan waxa ugu horeyntaan u mahadnaqayaa mahadnaq leh Ilaahay subhanahu wa ta'ala ee noo suurtageliyay in maanta xafladan u dabaaldegno oo ah 22 guuradii 18 May laga soo wareego markii xornimada Somaliland la soo noqday waxaan markaa halkan ka salaamayaa madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamuud Siiraanyo iyo marwadiisa Amina Jirde Amina Waris iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici iyo marwadiisa Raxme Xaaji iyo golaha guurtida golaha baarlamaanka iyo dhammaan golaha wasiirada waxaan halkan ambaliyo uga darayaa dhammaan jaaliyadaha reer Somaliland meel kasta ay ku nool yihiin waxaa leeyahay bashbash iyo barwaaqo ku dabaaldega sanadkiina ilaahay waxa ka barayaa inaynu ictiraaf iyo nabadqab isku nimaadno. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waxaan ka wada madaxbanaanida ciidanimo gumaysan wixii ka dambeeyay laakiin shantii Soomaaliyeed ee u dhignay gogasha ee leynala garan waayay ayuu baynu dib ula soo noqonay warnagu xornimadeed iyo goonistaagaygi gaar baanu la ahaanayna. runtii maanta waa maalin taariikha waa maalin ku suntan qulubta shucuubta reer Somaliland yar iyo weyn guud iyo dibad anagu ka socona magaalada Turku jaaliyadii labaad ee Finland ah waxa sharaf iyo farxad noo ah inaanu idinla qayb galno xuska 18 May. salaanka bacdi waxa Muhammad Xalaal Maxamed Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka labaad waxaan magacaynayaa dadweynaha reer Somaliland ee ka soo qayb galay xafladan oo ah sanad guuradii 22 sanaadii ka soo wareegtay markii ay la soo noqonay xornimadii oo ah maalin aad iyo aad loogu qiimo badan haddii aan ahay shacabka reer Somaliland. waxaan u mahadnaqayaa Ilaaha Azza wa Jalla ee maanta inagu kulmiyay xafladan 22 sanadood ka soo wareegtay gooni-isutaagii Somaliland waxaan Ilaahay uga baryayaa intii halkaas soo gaarsiisay hawshan ee soo qaban qaabisay ajar iyo xasanaad ta kale waxaan salaamayaa dhammaan shacabka Somaliland ee ku nool gudo iyo dibadba. maanta Somaliland ma jirto 22 sano maanta waddanka waxa ku jira siyaasadda dhinacyada kala duwan ee waddanka gudihiisa ragii dhashay maalintii waddanka ugu dhawaaqay 1990 oo maanta ka mid ah oo ka talinaya وجهه الله قال والسلام يا رسول الله لا تجوع aad iyo aad ugu hambalyeynaya sida gudoomiyaasha iga horeeya uu sheegay inuu gudoomiyaha sheegay dhammaan waxaan halkan uga dirayaa hambalyo bogaadin iyo maalin iid oo wanaagsan munaasabada ay ka soo wareegtay 22 guurada ee farxadda leh ku beegan 18 May oo munaasabadan 22 guurada ka soo wareegtay gooni-isutaagii Somaliland ku salaamaya dhammaan madaxda qaranka madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan asxaabta qaranka kulligood way taariikhda socotaan jeclahay inaan ku sameeyo sanad guuratiya dadyo weeya sameeyo aan u salaxo 18 May gabagabadii xafladaasi ayaa waxaa halkaasi ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka soo bandhigay koox ka socota jaaliyadda Somaliland ee ku dhaqan waddanka Finland waana sanad guuradii 22aad ee ka soo wareegatay goon-isutaaga xornimada Somaliland. Maxamed Bashiir oo Maxamed telefishinka Somali Channel Helsinki Finland.